السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa Sakariya Soomaali iyo wadanka Australia marxaladii bariga dhexe ka dhacday oo shidaalka dagaalkii markii shidaalka dunida dhan wadaaday Australia waa saameysay wadanka Australia oo anagu hadda ku nool shidaalka ugu badan wuxuu ka soo galaa Singapore asagoo ka yimaada markaas bariga dhexe oo ah Qatar iyo UAE iyo Sacuudiga barayska qiimaha lagu jiro Australia shidaalkeedana waxa lagu gooyaa Singapore saas Australia ku soo galaa dawladda Australia waxay leedahay taxi gaar ah oo loo yaqaan fuel excise oo litir kasta konton senti ay ka goosato taas oo sababta shidaalka lacagtiisu inay aad u badato ka badato wadamada kale oo dollar iyo xoogaa buu ahaa marka hore hadda iminka $3 buu marayaa dieselka shidaalka loo yaqaan naaftada gaaskana waa adeeg iminka si lagu helo wadanka Australia wuxuu leeyahay sharci loo yaqaan ma garanaysaa the liquid fuel emergency act oo 1984 wadanka Australia soo saartay sharcigaas oo oranaya awoodna u siiya dawladda federaalka Australia haddii shidaalku ma garanaysaa meesha Australia ka soo galo oo xumaado in domestic wadanka Australia refinery-ga iyo shidaalka wadanka laga soo saaro oo yarka iyo wadamo kale oo gaar ah Australia xiriir la leedahay inay shidaal ka soo qaadato crude oil waliba shidaalka ceerinka oo wadanka ku samayso Australia sida u badan tahay refinery-ga ku yaalo shidaalka sifeyn jiray way xirta Geelong meel yado ku taala Victoria gobolka Victoria iyo Brisbane laba xabba ku hartay bas oo refinery-ga shidaalka lagu sameeyo hadda Australia waxa la rajaynayaa 2026 inay arrinteeda gali doonto maadaama Iran ay ka dhacday shidaalka Australia hawada ka baxay oo iminka shidaal la'aan baa ka jirta anigu galbeedka Australia jooga oo dahabka iyo iron ore iyo magaranaysa waxyaalahaas caan ku ah shidaalka ugu badan isticmaala shidaalka loo yaqaan dieselkaas oo marka ugu horeysa ka go'a wadanka gobolka Western Australia gaaska iyo oil kuruga waa laga qodaa labadaba iyaga laga qodaa haddana si kastoo tahay wax refinery kuma yaalaan taasoo sababta Eastern States inay magaranaysa ay wax kasta ka doonato meesha ugu horeysa horta ay saameysay waa halkan waa Western Australia oo ay saameysay arrintaas waana saameysay hadda mar hore shidaalkii waa go'a dieselkiina waa ka go'a meelaha fogfog oo ka baxsan caasimadda aduunka joogo magaalada Perth marka wadanka Australia dawladda federaalka Australia waxay isticmaali doontaa the liquid fuel act oo 1984 la soo saaray taas oo dawladda federaalka ay kontroli doonto kambaniyada keena una sheegi doonto meelaha ay kala geyn doonto oo markaas iyo qiimihiisaba taa waxa ka walwal dhinaca shidaalka Australia laakiin maciishadii xaaladdu inay isbedesho laga yaabaa wadanka Australia iminka wuxuu galay waxa loo yaqaan inflation reer galbeedka wadamada Australia ay ka mid tahay oo ku jira Europe meel ka mid ah inflation waxa la yiraahdaa marka lacagta qiimaheedu aw khadka ka baxo alaabaha lagu gatanayo hawada galaan guriga gaariga iyo waxyaalahaas cuntada la soo iibsado markii ay faraha ka baxdo $100 ay goyso 3 shay ama hal shay oo shalay waxay siisanaysa maanta alaabta hoos u dhacday lacagta qiimaheedu hoos u dhacay taas waxa lagu koobaa interestiga lacagaha la soo bangiyada deymaha iyo gaariga loonka lagu qaatay credit cardka waxyaalahaas ayaa reserve bank rate-ku kor u qaada taasoo sababta in irsaaqadu dadku ku adkaato lacagta qiimaheedina kor u kaco alaabtiina la gadan waayo waxa la yiraahdaa inflation bal yiraahdaa si lagu sameeyo inflationka oo economic markuu kor u kaco dadka shaqo la'aanta bilaa camalka ana ay yaraadaan oo dadku wada shaqeeyaan lacag haystaan oo spending too much yahay markaas waxay sameeyaan reer galbeedku inay interest kor u qaadaan si arrintaas loo kontrolo dadkuna ay u galaan cadaab bay galaan taas hadda Australia way sameeyay hadda reserve bank dhexe Australia lacagtu kor u qaada haddii guri deyn aad haysatay ama lacag deyna lagugu lahaa interestiga kugu soconayo kor buu soconaya iyadoo taa ka dhigan tahay intii 3 sanaad ahayd sanad kala ku sii darmanaya ama wasi dheeraan xaaladdu waa si adkaanaysa lacagta shaqeynaysa si adkaanaysa markaas lacagta qiimaheedu kor loo soo qaado inflation baa loo yaqaan midda labaad oo laga yaabo inay dhacdo hadda Australia waxa weeye recession ka waxa la yiraahdaa marka unemployment-ga dadka bila shaqada faraha ka bataan kambaniyo badan xirmaan dawladda iyo wadanka economics oo dhan hoos u dhaco xaaladdu meel xun ay gaadho wadanka Greek ku dhacday muddo fog arrinta hadday dhacdo recession bal yiraahdaa interest rate-ka ayaa iyadana khadka laga saaraa rate cut bal yiraahdaa hoos baa loo dhigaa si marka dadku lacag u qaataan guryo u gataan baabuur u gataan ay kor u soo kacdo hadday kor u kacaa batana inflation buu bedelayo waa lagu qabtaa haddana waa sheekada magaranaysa wareegga dalaqda la yiraahdaa Australia labada midba ka filo iminka xaaladda Iran waxyaalo badan bay soo kaltay marka hadda Australia ku cusub tahay oo marxaladan adag la kulantay maciishada qaaliga kirada qaaliga inflation baa wadanka ku jira taas oo ay ka dhigan tahay wadanka bangiga saddexe ayaa kor wuxuu qaadi doonaa interestiga lacagaha deymaha lagu qaato lagu bixiyo oo lacagta qiimaheeda kor u qaada taas oo ka dhigan waxyaalaha soo gadanaysa iyo lacagta qiimaheedii alaabtu inay qaali tahay waxyaalaha aad goyn weyd halkan waa wadanka Australia iyo Soomaaliya. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.